السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا ويلكم مالي وناكسن كسودة وهذا channel كينا FX Somali Review واتكم هسنتين داوشة فيديو كان وفيديو إني ستحات مالي لها ما شاء الله أديت بأو ما سنتين after that إن شاء الله تعالى ما انتوحان دون مرينا لعيه شلي أنصوب النقني kuwii faa'iidada noo keenay maasha allah iyo kuwii la furan iyo muxuu ahaay kuwan ku qasaarnay sorry insha allah euro new zealand aan ka bilaabo insha allah euro new zealand alxamdulillah waa shalay sidaan sheegnay areas baan kasoo galnay 1.7462 alxamdulillah waa uu noo keenay 1.7240 taasoo ah 220 pips iyo maasha allah qiimahood aragtaan ilaa inuu imaado 1.722 so alxamdulillah shalay qiimihii kor u yara kacay euro balse waa u soo dhacay newska masha allah waa tii aan sharaxnay xitaa in qiimihii hadduu newska uu negative xoog badan oo noqdo u jibiyo oo sidaan oo kale u noqdo in qiimihii kor loo yar celin doono correction uu sameyn doono after that oo qiimihii hoos u soo dhici doono chartka siduu ku cad yahay balse alxamdulillah muusan noqon uu ixtiraamay oo newska news sidaas u weyn oo aad iyo aad u xoog badan muusan ahayn maasha allah waa qiimihii kor baa loo qaaday 724 areas maasha allah in qiimihii supportiya maasha allah after that waxaa fududaatay in qofkii qiimihii uu sugo saacadaha yarka kale uu saarto after that support iyo markii aad ilaa dhowr saacad aragto masha allah so marka alxamdulillah qiimaha bartaas 1.750 haddana ilaa aan ka hayo 44 pips ilaa 43 pips so marka waxaan rajeynaynaa qiimihii inuu eridan uu ku dhici doono after that qiimaha kor u kici doono laakiin waxaa suurtagala 1.7350 ilaa inuu sadaafin 100 pips balse mar walba oo qiimaha uu dhaqaaqo 100 pips uu dhaqaaqo 200 150 qiimaha ay mar walba stop losska waxaa keenta entry pointiga kala keen ama profit soo dhex geli 20 pips 30 pips 40 pips so magaran 100 pips hadduu dhaqaaqo qiimaha 10 pips ilaa 20 pips keen oo u soo noqon doono oo muxuu ahay qiimi dadkii laga waday baa loo soo celin doona laakiin badanaa dhacdo qiimi toos buu u socdaa oo ma joojiyo insha allah aan tagno oo pound USD weekly aan u fiirino pound USD afartiisa masha allah qiimihii waa kana eridan 1.2760 masha allah waa uu kacay fiiri waa uu kacay qiimihii qofkii meelahan oo kale ka galay masha allah 1.735 qofkii ka soo galay waa masha allah wax fiican buu ka qabtay maalintaas shalay ahayd newskii kor u kacay markii dambe uu soo jibiyay pound USD waa kana xilliga mareykanka markii la furay dollarkii kor buu u kacay waa kana waa la soo celiyay poundka so marka masha allah waa kana waataan ku cadeyno qiimaha ilaa in meelahan gaaro then wax yar la soo yar celiyo kadibna sidaan loo qaado so ma garan laakiin way noqon weysay qiimihii sidaas waa uu soo jibiyay dollarka maadaama uu kacay xilliga mareykanka markii la furay bay ku aadanayd xilligan so waa uu soo dhacay alxamdulillah wax khasaar muusan gelin maadaama eridan aan ku sugeynay ilaa muxuu ahay 5 pips meelahaas adiga wax aan faa'iido sidaas u weyneyn baan soo dhex dhigay stop losska masha allah waa uu soo jibiyay so mar walba wax hadduu dhaqaaqo qiimihii waa lasoo yara celin doonaa laakiin waa inaad muxuu ahay adigana aadan khasaaro aadan gelin at least khasaaro inaadan gelin xitaa haddii uu mar labaad support uu ka dhigto waxaa ku roon inaad markaas oo kale losska maadaama kor u kacay losska inaad soo yareyso soma aadan garan losskaaga aad soo yareyso insha allahu tacaala aan fiirino New Zealand USD isagana shalay soo bandhignay New Zealand USD waa kana qiimihii shalay kacay meelahan baan ka sugeynay laakiin wax yar ilaa 30 pips markuu dhaqaaqay oo anagana aan ka galnay 0.6582 aan ka galnay entry pointigan ahay 30 pips oo dhaqaaqay 30 pips oo marka alxamdulillah waa uu soo jibiyay
soo jebiyey xaggan iyo waa uu soo jebiyey waxaad aragtaana candlekana u fiirso waa Mareykanka markii la furay dollarkii baa kor u kacay waana la soo riday so ilaa hadda waxaan ku jirnaa khasaaraan ku jirnaa 30 pips so waan sugaynaa ilaa stop losska hit uu ku sameeyo uu dardaro insha Allah waxaa kaloo fiirinaynaa oilka maasha Allah si fiican u socday shalay oo habeen hore aan soo galnay qiimihii waa kana meeshaan ka galnay 66.20 areas aan ka galnay qiimaha fiiri meesha oo ilaa uu gaaray laakiin shalay waa sharaxnay qiimaha up to here calaamadaas inuu gaaro baan sugaynay oo ku aadan 68.46 ilaa 50 profit laakiin wuxuu sameeyay qoriga dheer haddii aan si fiican idin tuso oo gaaray 68.37 so marka waa kana 34 ilaa 37 uu gaaray qiimihii uusan gaarin alxamdulillah khasaaro sidaas weyn maanan gelin khasaarana ma jirto laakiin qiimihii wuu kusoo dhawaaday 66.51 iyo meesha ka galnay 66.20 meesha ka galnay waxaa u dhaxayso 30 pips balse hadda waa laga yar qaaday alxamdulillah mar walba sidaas u kaco waa 66 waa 215 pips buu kor u kacay so marka 215 pips waxaa laga rabaa adiga inaad soo dhaqaajiso ilaa 70 ilaa 80 ilaa 90 inaad soo dhaqaajiso boqol kale uu soo dego kadib uu kaco balse muxuu sameeyey muxuu ahaay qiimihii shalay muxuu sameeyey waa kana Mareykanka markii la furo dollarka uu kacay waa kana dhicitaan buu bilaabay waa muusan istaajin soo ma jeedaan dhicitaan buu bilaabay Mareykanka sida pound USD wax walba u soo dhaceen soo marka be careful mar walba profit aad haysato swing ku jir ama wax walba ku jir mar walba xitaa 200 ilaa 300 ay gaarto profit kaaga soo qaad stop loss kaaga soo qaad entry point-iga keen ama waxa soo dhex galaysaa profit 50 30 20 hadba sidee macnaha inta pips oo kacay bay ku xiran tahay insha Allah aan eegno pound Australian isagana pound Australian aan eegno waa kana qiimihii maasha Allah qiimihii waa kana qiimihii shalay waxaan dhahnay inta mid baan ka raacnay 1.7 60 mid baan ka soo raacnay sida balse wuxuu sameeyay news markuu soo bax kor baa loo qaaday markii dib loo soo yar celiyay haddana waa lagu celiyay mar labaad waxaan rajaynaynaa mid labaadna sell limit kale intuu yaalay maasha Allah 1.7630 marka alxamdulillah waa qiimihii waa ka xitaa waa uu ka dhaxbaxay ilaa 5600 pips ku dhawaad buu kan nagu sigay inaan gaarno stop loss alxamdulillah mar walba aad aragto qiimihii kor u socdo balse waad isleedahay psychology iyo mar walba dhinac marka u fiirsato qiimihii risk waa inaad qaadato stop loss xoogaa kor u yara qaadaa ma garatay si aad uga badbaado sometimes haddii kale adigoo ka baxday waxaad arkaysaa sheeg oo sida markii la soo celiyay laakiin waa inaa markuu intuu kale imaado intuu kale haddana inaa qaado lama rabo waa inaa marka dambe mar baduu trainka kasoo dhexbaxo waa inaad sideeda ku dhaaftaa ma garatay so alxamdulillah kii kale hadda waa kana maasha Allah waxaan keenaa 34 pips maasha Allah 96 buu marayaa kana waxaan ku jirnaa ilaa 36 pips camal waa isku bixis waa marka two trade waan sugaynaa ilaa up to here inuu imaado qiimihii la soo celiyo trainka ixtiraamo oo hoos u soo dhaco waan rajaynaynaa insha Allah taala pound Australian news baa u jiro saacad iyo barka bacdi insha Allah haddii aan fiirino USD Canadian haddii aan fiirino USD Canadian haddaan fiirino maasha Allah waa kana qiimihii shalay aan dhahnay ilaa inta buu imaan doonaa oo supportiga kadib waxaan rajaynaa inuu qiimaha kor aado kadibna uu soo dhaco aan rajaynaa maasha Allah qiimihii waa uu imaaday balse qofkii meelo fiican ka soo raacay waa inaa qiimihii waa uu imaad wax yaroo qori ka baxsaday laakiin alxamdulillah 60 waa uu noo furay haddana 74 ilaa 15 pips wax sidaas baan keenaa laakiin waxaan rajaynaa in qiimihii ilaa
3140 ilaa eridaas inuu gaaro 90 ilaa 80 pips waa short waaye insha allah waa wax iska yar aan maanta jeekino euro australianka midka aan rabno inaan galno maanta euro australian afartii saacadood aragto resistance here or 2 times resistance here so majidaan 1 and 2 so alhamdulillah euro australian waa trainkan down trade buu ku jiraa waa 1 here 2 here uu ka baxsaday qorigan 3 here so markii labaad uu soo taabtay in qiimihii waxaa rajeynaynaa ilaa inuu inta imaado insha allahu tacaala 1.560 ilaa 80 pips inaan ka qabano waa rajeynaynaa and after that wax yar kor loo yar celiyo euro australianka wax yar kor loo yar qaado uu soo dhamaystiro qiimihii ilaa up to here 1552 balse taas waxay qaadan doontaa ilaa Thursday-da tomorrow ilaa Friday inuu ku gaaro insha allahu tacaala qiimaha marka waa sell area fiican insha allahu tacaala euro australian have a nice day aydin rajeynaa in micnaha qiimaha uu meel fiican inoo gaaro insha allahu tacaala intaas baan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo euro new zealand oo buy aan galnay euro australian oo sell aan galnay iyo pound australian oo aan ka sugeyno sellkiisa fiican insha allah iyo oilka oo aan caawada newska ka sugeyno in news fiican noo soo baxo walibana news waxaa la filayaa positive ah so waxaan rajeynayaa in qiimihii inuu ka kaco eriyadan oo aan rajeynayno ilaa up to here inuu gaaro balse mar walba waxay ku xiran tahay dollarka xitaa jiro wait until aad aragto newska meeshuu dhacayo dollarka xoogaa yar buu saameyn doonaa caawada hadduu isbedel fiican uu sameeyo newska la filayo marka insha allahu tacaala wait mar walba profit aad dhex gashana waxaa idinkula talinayaa inaad qiimaha aad soo qaadaan stop losska dhexda keentaan so oil aan sugeyno USD and Canadian aan ku jirno euro australian oo sell aan galnay euro new zealand buy ku jirno pound australian aan sell ku jirno walibana labo insha allah euro USD isagana buy limit aan ku sugeyno insha allahu tacaala eridan ay intuso up to here kan up to here inaan ku sugno 1.3110 balse muuse uu kusoo dhawaaday 1.320 qiimihiina hadda kor baa loo qaaday laakiin insha allah wait isha ku hay news baa jiro xitaa buy limitka inaan ka baxo waa rajeyna maadaama dhowr trade ay furan yihiin oo aan ka gaarin buy limitkiisa oo aan isugu ilaa newska uu kasoo baxo maanta insha allahu tacaala intaas baan maanta ku ekeenaynaa reviewgeeni waad ku mahadsantihiin daawashada videoga waa anigoo Sakariye ku magac dheer Harbaawi subscribe like share and comment thanks asxaabta maalin wacan insha allah bye bye